yaa dooranaya baarlamaanka federaalka yaa laga sugayaa inay doortaan dadka baarlamaanka ee namatali doona waxaan ka wadaa xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada waxaa dooranaya 51 ergo oo qabiilka ay ka soo xuleen madax dhaqameedka iyo nabadoonnada oo shuruudaha ay loo dejiyay ay u dhameystiran yihiin kadibna loo gudbiyay guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleedkii sidoo kale guddiga doorashooyinka federaalku ay hubiyeen inuu saxan yahay 51 kaas qof ayaa codeynaysa yaa loo ogol yahay inay isu soo sharaxaan xildhibaannimo yaa xaq u leh inuu u istaago ama u tartamo baarlamaanka ayaa ayana u baahan in dadka Soomaaliyeed ay aad uga dhirgaan cid kasta oo u tartamaysa golaha shacabka ama aqalka sare ee baarlamaanka waxa u yaala shuruudahaas waxa yihiin horta qofka marka hore inuu aqalka golaha shacabka u tartamayo inuu Soomaali yahay da'diisu ay dhan tahay 25 sano in aanay maxkamadda ku xukumin dambi ka reebaya inuu qabto xafiis dawladeed ama xil siyaasadeed in uusan xiriir la lahayn dadka xaq jirka ah in uu ka soo jeedo haybta kursiga loo tartamayo iska leh gudoomiye halkee ayay ka dhacaysaa doorashadu Garowe Cadaado Kismaayo Baydhabo Xamar iyo Shabeellaha Dhexe ay hiiraan oo halkii caasimad u ah hadii markaasi ay dowlad goboleed kala dhiso ayadana lagu dooran doono guud ahaan waa imisa xildhibaanada la dooran doono xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo laba aqal ka koobnaan doono waxay